Somaliland ayaa waxay sheegtay inay Israa'iil ka heshay aqoonsi dal ah maalintii la soo dhaafay. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xalay shir degdeg ah isugu wacday dhammaan golaha wasiirada oo hogaamiye u ahaa Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ilaa iyo hadda dadaal fara badan ku bixinaya si ay ugu soo horjeesan lahaayeen aqoonsigani xadgudubka ah dalalka caalamka oo ay ka mid yihiin Falastiin, Sacuudi Carabiya, Qatar iyo Turkiga iyo ururo kale. Madaxweynihii sagaalaad ee dalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa carabkiisa ku adkeeyay arrintaani inay tahay xadgudub oo lagu soo xadgudbayo qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya. Isagoo bartiisa X ku soo qoray sharciga caalamiga ah wuxuu Israa'iil ku waajibinayaa inay ixtiraamto midnimada dhuleed iyo madaxbannaanida Soomaaliya. Aqoonsiga qayb ka mid ah Soomaaliya wuxuu si buuxda uga hor imaanayaa arrintaas. Somaliland waa qayb aan ka go'in oo ka mid ah Soomaaliya, shacabkeeduna si adag bay ugu midaysan yihiin difaaca madaxbannaanidooda. Madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa ku dhawaaqay dhammaan in la fasaxo shaqaalaha dowladda si ay ula dabaaldegaan maalintan ay ku sheegeen inay u tahay ciid. Arrintan ayaa waxaa si cad u cambaariyay dowlado fara badan oo ay ka mid tahay dowladda Qatar iyadoo warqad soo qortay oo aad carabku u adkeysay Israa'iil inay ku tahay xadgudub midnimada Soomaaliyeed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo wada tashiyo baasan oo diblomaasiyadeed la yeeshay hogaamiyaasha bariga iyo geeska Afrika Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada hadallo diblomaasiyadeed oo degdeg ah kula yeeshay khadka telefoonka madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya William Ruto, madaxweynaha Jamhuuriyadda Midowday ee Tanzania Marwo Samia Suluhu Xasan iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Uganda. Wada hadalladani ayaa diiradda lagu saaray xadgudubka sharci darrada ah ee Ra'iisul Wasaaraha Yahuudda uu kula kacay madaxbannaanida iyo qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, taasoo halis ku ah xasilloonida iyo amniga gobolka kana soo horjeeda xeerarka iyo shuruucda caalamiga ah. Gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Maxamuud Cali Yuusuf ayaa bataatan si cad u diiday wax kasta oo la xiriira aqoonsiga Somaliland, isagoo mar kale adkeeyay mowqifka joogtada ah ee Midowga Afrika ee ku aadan midnimada, madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. Gudoomiyaha wuxuu si adag u diiday tallaabo kasta ee lagu doonayo in Somaliland loogu aqoonsado dal madaxbannaan, isagoo xasuusiyay in Somaliland ay weli tahay qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Wuxuuna sheegay in tallaabo kasta oo wax u dhimaysa midnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya ay khatar ku tahay nabadda iyo xasilloonida guud ahaan ee qaaradda Afrika.